السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كنا وحكو سابسان يهي وشورت باسج وعشر إنجليزي وآد وقابن مركا وعشر آد وفضود وأنا سلاي هي أما أن أقول تلقلي إني كفايدستان أردادا بلوغة برنامج اللغة الإنجليزية. إنتان عشر كبلابين حنكا عودسنا إن عشر كالله جريسو سيكرود بدن وقارو أيقنا يقول فايدستان. أوكي إن شاء الله إن عشر كان سي بلابيا مركو هريوان أخرينيا عشر كان مركو وحوة إن سؤال كوبان وأنا قلت لقلي إن لقو فهمو عشر كا. أوكي مركو هريوان أخرينيا short passage. There is a big library at our school. There is a big library at our school. There is a big library at our school. I like to read stories there. I like to read stories there. I like to read stories there. Some books have pictures. Some don't. Some books have pictures. Some don't. Pictures help me understand the stories better. Pictures help me understand the stories better. There is a big مركو سؤالها انتان. There is a big at our school. A ground. B hall. C library. What do I read in library? What do I read in library? A textbooks. B history books. C novels. Are history books with pictures easy to read? Are history books with pictures easy to read? A yes. B no. marka sharaxadan bilaabaya markaan sharxo oo aad fahamto waxaad sameyn doontaa su'aalahaas ayaad ka jawaabi doontaa. Okay. And there is a big library at our school. School keena waxa ku yaalo maktabad weyn. marka library waxa la yiraahdaa waa maktabad. There is a big library at our school. School keena waxa ku yaalo maktabad weyn. Big library waa maktabad weyn. There is a big library at our school. School keena waxa ku yaalo maktabad weyn. I like to read stories there. aniga waxaan jeclahay ama aan ka helaa inaan halkaas aan ku akhriyo. halkaas yani wuxuu la jeedaa maktabada inaan ku akhriyo stories sheekooyin. I like waxaan ka helaa to read stories there. inaan sheekooyin aan ku akhriyo halkaas ama aan ku akhristo halkaas. halkaas macnaha there waxa laga wadaa hadda waa maktabada yani library. I like waxaan ka helaa to read stories there. inaan maktabada ama halkaas inaan ku akhristo sheekooyin. inaan maktabada aan ku akhristo sheekooyin. marka there hadda waxay u dhigan tahay ama ay mathalaysaa ama u taalaa maktabada. I like to read stories there. waxaan ka helaa ama aan jeclahay inaan sheekooyinka aan ku akhristo halkaas oo ah maktabada. waxaan rajaynayaa la fahmay intaas. Okay. Some books buwaagta qaar have pictures waxay leeyihiin ama waxay wataan sawiro ay wataan. Some don't qaarkoodna sawir ma wataan. yani wuxuu ka wadaa buwaagta qaar oo sheekooyinka ah waxaa la socdo pictures sawir ayaa la socdo. macnaha sheekadii iyo sawirkeedii. sheekada markaad akhrinayso sheekada waxay wadataa pictures sawiraan ay wadataa ama sawiro ay wadataa. Some books buwaagta qaar have pictures waxay yani sawir ay wadataa. يعني معناها some books buwaagta qaar oo ah buwaagta sheekooyinka have pictures waxay leeyihiin marka waxay wataan sawir yani sawiraan ayaa la socdo. Okay. Some don't buwaagta qaarna sawir lama socdo oo macnaha sawir la'aan waaye oo sheekadii kaliya ayaa ku yaalo. waxaan rajaynayaa inaad fahamtay halkaas. Okay. Pictures sawiraanta ama sawirada help me waxay igu caawiyaan understand inaan fahmo the stories sheekooyinka inaan fahmo better inaan si wanaagsan u fahmo si fiican u fahmo. macnaha pictures help me understand sawiraanta sheekooyinka waxay igu caawiyaan inaan fahmo the stories sheekooyinka inaan fahmo better inaan si fiican u fahmo. Pictures sawiraanta ama sawirada sheekooyinka ku jira help me waxay igu caawiyaan understand inaan fahmo the story sheekooyinka inaan fahmo better inaan si fiican ama si wanaagsan aan u fahmo ay igu caawiyaan sawiraanta sheekooyinka ku dhex jira.
waxaan rajaynayaa inaad fahamtay casharkaas. Okay, marka waxaad ka jawaabaysaa su'aalahan soo socda. Marka waa meelaha banaan buuxi. waxaad ku dhamaystiraysaa marka jawaabaha hoosta ku qoran oo ah tusaale su'aasha koowaad waxaa lagu yiri there is a big dash at our school. marka meesha dash halkaas waxaad gelinaysaa marka ereyga ku haboon ee loogu talagalay oo ah saddexda mid kamid ah. A waxaa lagu yiri ground, B waxaa lagu yiri hall, C waxaa lagu yiri library. marka saddexdan erey casharka waad fahamtay midka ku haboon ee halkaas geli. Okay, there is a big dash at our school. saddexdan mid kamid ah geli, ama ground geli midka ku haboon geli, ama hall geli, ama library geli. casharka waad soo qaadatay waa passage-ka kore. Okay, talabaad su'aasha labaad waxay tahay what do I read in library? maktabada aniga maxaan ku akhriyaa? what do I read in library? maktabada maxaan ku akhriyaa aniga? marka saddexdan mid kamid ah geli. A textbooks, B history books, C novels. saddexdan midka ku haboon geli haddii aad fahamtay casharka. Okay, su'aasha saddexaad ee u dambaysa waxay oranaysaa sida tan are history books with pictures easy to read? يعني بواقت sheekooyinka ku qoran ee sawirada la socda يعني in la akhriyo ama la fahmo ma fududahay. history books with pictures easy to read يعني بواقta sawiranta la socda ee sheekooyinka ma fududahay in la fahmo يعني la akhriyo in la akhriyo يعني easy to read in la akhriyo ma fududahay bواقta sheekooyinka. marka labadan ayaad kaga jawaabaysaa oo ah A yes, B na no. okay, marka labadan aad kaga jawaabaysaa midda saxda ah adiga laga rabaa maadaama casharka passage-ka aad soo qaadatay oo aad soo aragtay. marka hal mar ayaan dul marayaa oo waan akhrinayaa. Okay, short passage. There is a big library at our school. There is a big library at our school. I like to read stories there. I like to read stories there. Some books have pictures, some don't. Pictures help me understand the stories better. Pictures help me understand the stories better. Okay, su'aalahaas ka jawaab. casharkeena halkaan ku soo gabagabeynaya. waa inoo casharka xiga iyo sida iyo nabadgelyo. isma dhaafin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.